السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليقها ولا لها قيمها بدن كسر هذا برشة لغة إنجليش كعشر مهم conversation وشكيسي أنسلايا هي أرددا وينفعيا عشر كا وعن بلوننا وكان وحيرك بعدي عشر كينا يعني إذن آخرين دونا A iyo B ayaa sheekeysanayo. A wuxuu yiri excuse me igraali noqo. Where is my bookgayga which kaaso have you adiga taken at soo qaaday from me aniga adiga soo qaaday. B wuxuu ugu jawaabay don't mistake me ha igu qaldin for someone qof else kale. Look at me ifiri well si fiican ifiri. A wuxuu yiri ay aniga now waan garanayaa you adiga waan ku aqaanaa very well si wanaagsan and misna do not try ha isku dayin to deny inaad inkirtid my bookgayga. B wuxuu yiri okay hagaag my friend saaxiibkaygiiyow I was joking waan kaftamayay with you adiga ayaan kula kaftamayay but laakiinse I aniga forgot waxaan ilaaway your bookgaaga at home guriga ayaan kusoo ilaaway. A wuxuu yiri okay hagaag no problem dhib ma jiro dhib ma lahan but laakiinse don't forget ha iloobin next day maalinta xigta. B wuxuu yiri if Allah says hadduu Ilaah yiraahdo